caygu waa hassan galaydh gabadha aan isfahanno isku soo dhawaano isku sii fogaano oran jirtay ninka xasan la leeyahay markuu soo istaago niyo soo yar dheera oo su'aalo kulula laakiin idinka waxa la idinku eedeynayaa in aad dadkii shacabka ahaa dhulkii ku haysataan waliba dhul ay iyagu sharci u leeyihiin maxaa sababay arrimaha الله نكون سيدا كل يهي مصر بيبا هذا اللذا قفك وسلوغنا سلقا لقيا أين هروسي سعني مقعي سوا حسن سليبان هارون حسن galaydh waxaa ku dhashay degmada Qoryaaley sanadii 1989 waa saxafi ka howlgala gudaha magaalada Hargeysa taabonidi lahaantiinba meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada war wixii naga soo gaaray cariga Soomaalida iyo waliba caalamka intiisa kale warku waxa uu ka imanaya xarunta dhexe ee telefishinka Home Cable uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana حسن galaydh oo aan inay madax badan ka guuraan guryahooda marka uu barto si aanu mar kale u oran warka keena laakiin saacad wasiir anigu waa tagay goobtan bariga Hargeysa ku taala dadkii waxay ku tusayaan waraaqihii oo sharci oo ay sitaan oo dawladdu siisay oo ay dhulkan ku milkiyeen qaar way iibsadeen qaarna iyaga horu lahaa oo loo sharciyay markay sidaa tahay miyaanay habboonayn in aadama ka iibsataan ama bedel siisaan meena ka qaadaan baa xuquuq qofka muwaadin inaanu ka qaadano sabab isagoo arkaya sida ugu jawaabay ayuu wali su'aaliyo sabab uu ku leeyahay ninku xuniya badana galaydh qof muwaadina oo dhul iibsaday oo sifa sharciga ku iibsaday oo sharcigiisa haysta markaad leedahay waa inaanu ka qaadnaa ma budcad baa tiimeen dawladda hayn hal abuurkan hal adaygan hadal yaqaankii waa saxafi rug cadaaya muddo badanna ka soo shaqeynaya hal TV ma saxafiinta kolba meel u booda ama se TV badan ka soo shaqeeya waa saxafi dhidibada iyo udubka u aastay TV-ga caanka Home Cable TV gabiyaha waxaan inta ku soo gabagabeynaya ka sheekinka saxafiga caanka Hassan galaydh waaniga wareer gooyalka daawanaysa waduriya filmisa diyaay tahay markii koobaad aad soo booqatay waxaan soo baahiyaa muuqaal maalin la si aad ula socoto fadlan ku soo biir page-ka habeenka iyo maalintaaduba ha ku wacnaadaan